بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku soo dhaweynayaa akademiyada software oo aad kala socoteen kooriska Odoo Accounting. waxaan ku guda jirnay koorsada Odoo ERP System ama Odoo Accounting waxaan qaadanaynaa cashirkeena saddexaad ee kooriska. cashirkeena saddexaad waxaan ku qaadan doonaa chart of accounts-ka ama company-ga account-kii sida loo sameeyo. waxaan isla tegaynaa buuggeena reference-ga noo ahaa. marka hore waxaan usoo qaadanay inaan soo samaysanay account inaan kasoo samaysanay programkan la yiraahdo Odoo-ga. hadda waxaan sharaxaynaa qayb yar oo ah inta uu noo socdo kooriskan waxyaabaha aan ku qaadan doono. waxaa jira 3 company iyo 3 company oo aan ku qaadan doono inta kooriskan uu socdo. saddexdaas waxay kala yihiin merchandise company, company alaab soo iibsada siina iibiya, merchandise company la yiraahdo. waxaan kaloo ku qaadan doonaa company la yiraahdo manufacturing company, company wax soo saara oo raw materials inta soo saara, process gareeya, finished goods soo saara. sidoo kale waxaan ku qaadan doonaa service company oo company adeeg qabta oo aan not goods badeeco aan iibin laakiin service sameeya. qayb aan u tagi doonaa. waxaan ku hormareynaa merchandise company oo ka ah company alaab soo iibiya iskana sii iibiya. waa company sidii u badan yihiin. asagana waxaan ku qaadan doonaa 3 step aan ku mari doonaa. setting up inaan dejino company accounting, akoonada company-ga accounting-kiisa inaan fariisino, xisaab fariisina la yiraahdaa. oo xisaab fariisintaas maxay tahay? waxaan ka soo qaadaynaa company-ga inuu isticmaalo manual oo gacanta ah oo uusan wax software isticmaalin, kadibna computerize aan uga dhigno, ama computer inuu isticmaalo company-gu QuickBook ama Page3 ama program kale, kadibna aan u soo bedelno Odoo-ga aan u soo wareejino. waa xisaab fariisin. marka xisaabta fariisino kadib waxaan qaadan doonaa recording transactions, dhacdooyin aan sameeyno. dhacdooyinkaas waxay noqonayaan purchase iyo sale, alaab inaan soo iibsano iskana sii iibino. waa recording transactions, waa qaybta ugu muhiimsan. waxaan qaybta ugu dambeeyda qaadan doonaa closing entry, xisaab xirka and protecting company data, iyo company-ga xogtiisa inaan ilaalino, password u sameeyno, passwordkiisa adkeyno, username kale u sameeyno, daatado kale meesha noo olaanaysa fiirino iyo wixii lamid ah. marka haddii aan si kooban u niraahno 3 company aan qaadanaynaa. company-ga merchandise-ka oo alaab soo iibiya siina iibiya, merchandise company-ga la yiraahdo, waa company-da ugu badan ee 90% ka ah Soomaaliya. company-gaas ayaan waxaan ku sameynaynaa 3 step oo kala ah inaan xisaabta fariisino, dhacdooyinka diiwaan gelino iyo xisaabta inaan xirno. cashirkan maanta waxaan ku qaadanaynaa chart of accounts-ka. marka akoonada sida loo sameeyo. accounts waxaa la yiraahdaa company-gu akoonada uu isticmaali doono wax ku xisaabsan doono sida loogu diiwaan geliyo programkan Odoo. waxaa laga tegayaa accounting app ama application-ka accounting-ka, kadibna waxaan ku dhufanaynaa configuration-ka, chart of accounts halkaasaan ka gelin doonaa. qaybtan yarta wuxuu noogu sheegayaa basically as ahaan Odoo-ga wuxuu leeyahay it is built chart of account. chart of account diyaarsan oo dhisan uu leeyahay. usually badanana waa generic chart of account template waaye. waa akoona template oo diyaarsan waa. kuwaas oo aan wax ka bedeli karno annagoo ka dhiganayna akoonada aan rabno. marka company-gan aan ku wada shaqaynayno oo la yiraahdo software company chart of accounts-kiisa ama company-gaaga markaas adigu magaciisu ku noqon doonaa chart of accounts-kiisa waa kuwa diyaarsan. akoonadaana badankood company-du waa isku akoono, marka qayb waa ku darsan kartaa, waxna waa iska reebi kartaa, laakiin waxaan isticmaalaynaa akoonada loo badan yahay. 4 qayb uu ka kooban yahay. waa account number-ka, account name-ka, akoonka magaciisa, iyo account type-ka, nuuca uu ka yahay accounting, asset miya, liability miya, capital miduu yahay, weliba qaybtuu ka sii yahay. groupkana waa groupka uu ka tirsan yahay, asset iyo liability iyo capital. waxaan fiirinaynaa 3 akoon waa kuwan: account number-ka, account name-ka iyo account type-ka. 3daas ayaan diiwaan gelinaynaa, groupkana asagaa qaadan doono. marka line-kan haddaa fiiriso waxaa la yiraahdaa waa account number. account walbo asset ahna waanuu ka bilaabanaya. account name-kana waa magaca akoonka, sida cash on hand, qasnada lacagta akoonka lagu shubo, oo EVC Plus kale u dhigan ama wixii lamid ah, ama dahabka u dhigan. Salaam Bangi
akoonka ku leedahay oo company uu ku leeyahay, dahabshiil bangi, dahabshiil akoonka uu shirkadu ku leedahay, green bangi outstanding receipt waxaa la yiraahdaa akoonada lacagtu ay noo soo gasho, outstanding paymentina akoonada lacagta aan ka bixin. marka akoonada starku ay saaran tahay hadaad u jeedo stock valuationka waa akoona must ay tahay in la sameeyo oo aan laga gudbi karin Odoo. stock interim, stock out, interim delivery iyo receivable la kala yiraahdaa ayagana waa must in la sameeyo. marka waxaan rabnaa akoonadan inaan sameeyno, sida loo sameeyo ayaan idin tusin doonaa. akoonadan way badan yihiin, waxaad ka fiirsanaysaa ama buugga xarunta ka qaadanaysaa ama waxaad samayn doontaa screenshot inaad ka qaadato akoonadan, sidaana usoo samaynaysaa akoonada. waa kuwan akoonada hadda waxaa halkaas noogu dhammaaday assetka 1500 noogu dhammaaday wixii assida. halkan liability waaye, wixii liability intaana kasoo qaadan ayagana 2 ay ka bilaaban wixii liability ah. halkan waa kabitaalka, wixii kabitaal ah waxaan kasoo qaadan 2 kabitaal, laba qof inay iskugu darsantaa kabitaalada. revenue-ga waa dakhliga, asagana 4000 uu ka bilaabanaya, 4 uu ka kaca, asagana waa naqaanaa. account type-kiisuna waa income. expense-yada waa kuwan ayagana. intaasaan rabnaa inaan isla samayno maanta. waxaan tegaynaa Odoo-geena. halka marka sida loo soo furtaan rabaa inaan iskala bilaabno Odoo kow xageeda laga soo bilaabaa. waxaan tegaynaa odoo.com ayaan qoraynaa halkaas. kadibna halkaas dhibicdaas ku dhufanaysaa dhinaca midiga, my database ku dhufanaysaa. kadibna waa kana database-kaaga. haddii gmail-kan iyo password-kan dhowr database aad ka samayso, halkaanay kaaga soo wada bixi doonaan. marka database-ka aad markaas soo furanaydaad gelaysaa. haddana waxaan gelinaa database-kan ay noogu qorantaa software company, Edu software company oo educational purpose loo isticmaalayo. kadibna connect aan lahayn. halka markuu noo soo furmo waxaanu siiyey applicationada inoo furan aan ku soo darsanay Odoo-ga iyo qaar template oo marka hore ku jiray. waxaan tegaynaa application-kaas la yiraahdo accounting, aan tegaynaa accounting ka ay ku qoran tahay. kadibna waxaan leenahay accounting markaan ku dhufano wuxuu leeyahay dashboard, customers, vendors, accounting, reporting, configuration. waxaan ku dhufanaynaa marka anaga configuration ku qaybo badan uu leeyahay, setting in la saxo, waxyaabo badan oo arki doona, bank account in la geliyo. hadda waxaan tegaynaa chart of accounts, waa qaybteena koobaad. chart of accounts markaan ku dhufano waxaa inoo soo bixi doona akoonadii diyaarsanaa oo chart of accounts ka ah. chart of accounts marka sidaas markuu noogu soo baxo wuxuu noo soo baxaya akoonadii oo diyaarsanaa oo chart of accounts templates diyaarsan oo programkan Odoo-ga markiisa hore ku diyaarsan. dhinacan bidixda haddii aan tagno all aan noo dooran, waxaan dooran karnaa wixii asida. 1 waa wixii asid intaan weeyaan. waxaan kaloo dooran karnaa 2 wixii capital liability akoonada liability-ga oo samaysan. haddii aan tagno 3 waxaan dooranaynaa akoonada kabitaalka ah oo diyaarsan. haddii aan tagno 4 waxaan tegaynaa akoonada revenue-ga ama dakhliga ah. waxaan kaloo tegaynaa qaybtan kale akoonada lambar 5 waxaa gala cost of goods sold oo kaliya. lambar 6 wixii ka dambeeya akoonada expense-ga ay kala noqonayaan 6 iyo 9 labadaba. marka intaas all aan dooranaynaa marka hore. dhammaan chart of accounts oo dhan noo saaraya. qaybtan kor haddaan tagno new waa akoon cusub kusoo darso. importina waa akoonadii oo diyaarsan, chart of accounts oo diyaarsan, excel ahaan ku diyaarsan soo geli weye. qaybtaas importiga ah dib aan ka qaadan doonaa oo ah inaan chart of accounts-kan inta excel kusoo diyaarino ama quickbook ayagoo ku jiray la soo degno kadibna aan soo gelino hal mar by default. laakiin hadda waxaan qaadanaynaa inaan akoonadan anagu hal u samayno u bedelno. halkan code-kii waaye, code-ku waa account number-ka, account name-kiina waa kan, account type-kiina waa kan. groupka isagaa dooranaya, adigu groupka ma gelinaysid. allowed reconciliation-na wax saameyn badan ma lahan, waxay tahay akoonada reconciliation-ka lagu sameeyo. reconciliation waa iswaafajinta xisaabta bangiga, xisaabta buugga, marka akoonada lagu sameeyo weeye. waxaan tegaynaa marka akoonka koobaad oo aan samaynayno. haddaan buugga u laabano, akoonka koobaad aan samaynayno wuxuu ahaa 1000 oo account number-ka ah.
cash on hand waaye bangi and cash waanay akoon asidu noqonaya haddii aan mar ku laabano marka halkaan aan tegaynaa waxaan dooranaynaa koodka waxaan dooranaynaa 1000 kadibna magaca akoonkana waxaan u bixinaynaa cash on hand cash on hand ayaan u bixinaynaa account type-ka waa la dooranaa isaga waxaan ka dooranaynaa bangi and cash kadib marka oo dhamayso save file-ada dhamaantood wada samayn karnaa kan ku xigaan soo fiirinaynaa waa 1100 waa salaam bangi waana account type-kiisu bangi and cash kan ku xigaan tegaynaa isagana account receivable ayuu kan u samaysan yahay account receivable ahaan u deysan karnaa sida kan inaan ku soo hormarno kale waxaan leenahay marka halkan account receivable mar walba waa samayn doonaa saasaan u hormarsaday aan meeshiisa uga leexday 1100 ayaan leeyahay kan waxaan leenahay cash at salaam bank waa akoonkana salaam bangi lacagta inoo taala akoonka lagu shubo bangi aan cash aan leenahay kadib markaad dhamayso ayagoo dhan sidaas wada samaynaysaa ama 2 ama 3 markii aad sameydana waad save kartaa save file save arkayna hadda waa kan akoonka waan samaynay akoonkaan samaynay waa kan haddii aad view-dan tiraahdo qaybtan waa kan koodka waa account number-ka halkaana account name-ka account type-kana waa kaas halkaasaa gelinaysaa default account-kii ee low journal-kan iyo waxba ma gelinaysid deprecated-na log ku dheji waayo oo lama log saar ma isagana ma saareen marka waa ku laabanaa chart of accounts-kii sidaanaan akoonnada dhan usoo samaynaynaa haddii marka hore ay dhinacan midigta aad tagtid oo sidaan ay kaa yihiin akoonnada sidaan kaa noqdaan waxaad dooranaysaa kan waa isku mid waa 2 views ama 2 qaab ay usoo muuqan karaan chart of accounts-ka marka views-kan oo usoo muuqan karaan oo akoonka iyo account number-kiisa account type-kiisa sidaan kalena way usoo muuqan karaan oo ah akoonka number-kiisa oo koodka ah account name-kiisa iyo account type-kiisa marka casharkeena waxaan rabaa inaad soo samaysaan chart of accounts-ka oo dhammaystiran kuwaan oo dhan waa la tirtirayaa akoonnadan diyaarsan oo all iyadoo ay ku dooran chart of accounts-kan diyaarsan oo dhan waa la tirtirayaa waxaad soo samaynaysaan chart of accounts-ka buugga noogu qoran waa kuwan si fiican ugala soco qaybtan chart of accounts-kan oo dhan ayaad soo samaynaydaa akoon walba iyo account number-kiisa account name-kiisa account type-kiisa waan ku siiyey sidaas usoo sameey ilaa marka u dambaysa ay kaaga soo baxayso expense-ga akoonka ugu dambeeya oo miscellaneous expense la yiraahdo ama qarashaadka yararka la geliyo hameenka xiga waxaan iskala bilaabi doonaa halkaas akoonka ah basic configuration-ka ka bilaabayna marka qof walba waxaan ka rabaa chart of accounts-ka soo diyaariyo marka chart of accounts-ka diyaarido oo aad soo wada geliso waxaan qaadan doonaa qaybta ka dambayda configuration-ka inaad akoonnadii samayday sideed ku ogaanaysaa waxaa ku soo laabanaya accounting-ka kadibna waxaa imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay configuration chart of accounts ku dhufanay waa kuwan marka akoonnada halkaas ka ogaanaysa akoon walba iyo magaciisa halkaas ayaan ku ekeynaynaa casharkeena maanta casharka xiga ayaan halkaa kasii bilaabi doonaa